كيكمل رئيس بطالة كهول قلايان قدو بلدك بيدبو وسبيلاوي وني وستيل على وضرك أغارشوك ففاين تركول بساية أحمد إبراهيم بولي iyadoo guud ahaanba dalkaana Soomaaliya si weyn lanka ka soo udurka agaarishowga iyo waliba muddooyinka ka dambeeyay bil sheegay intii udurka agaarishowga talaalka la daaweeyay uu saadari guud ahaanba dalka Soomaaliya waliba xaflad la daafuray talaalka udurka agaarishowga la qabday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay gaar ahaan isbitaalka Horseed oo kumid isbitaalada cusub oo tala ka furay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay waliba uu qayb galay furitaanka talaalka udurka agaarishowga مسؤولين كترسن مامور كونفور galbeed Soomaaliya xildhibaana wasiire iyo waliba saaso kala gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Baay iyo waliba marti sharaf kala inkooreentii iyo waliba intii xafladda dareertay meelaasiti ku hadalay furitaanka talaalka cudurka agaarishowga qaar kumid ah mas'uuliyiinta oo qayb galay iyagoo sheegay intii walaalka farahayata inta isbitaalka Horseed oo kumid ah isbitaalada magaalada Baydhabo hata ku cusub sabilaawa waxaan maanta aad ugu faraxsanahay annaga Soomaali inaan dana gobolkii aan lahayn dib u soo laabano waayo Soomaali gobolka ay joogto waa isku mid marka baahida baaya barkool markaan aragnay waxaan aad noo soo dhiirigeliyay oo nagu soo dhiirigeliyay inaan nimaano gobolka waxaa kamid ah Horseed International Hospital oo partner la noqday isbitaalka Kalkaal Hospital oo isbitaal muqdisho ku yaala inaan ka taakulayno qaybaha caafimaadka oo kala duwan maanta waxaan bilownay inaan talaal u sameeyno hepatitis B oo cudur aad u badan ah inaan firi u sameeyno waayo baahida aad ay u badan tahay dadka generation ka cusubna si loogu badbaadiyo baahida waxa laga yaabaa cudurka hadaan laga talaalin America iyo Europe waxay hortagaan oo preventive way in laga hortago talaalka wax kala dheer uma sameeyno anaga arabna bulshada inaan gaarsiino iyada America raayis aan faraxsana dhaqaatiirta cusub la sheegay kalkaal America raayis inay maybuwa والبدن ونباهنا إني ما الرئيس يقدم كجار دكاترة وين كباهنا إني ما الرئيس دكاترة ونوكست هاي سنة دكاترة كفلوا مقالهم هاي سنة إنساس درتيه ما إيدن كم حنا جاني ما الرئيس دتكي هولن ما الرئيس كشق إني ما الرئيس كم تلو كفر إيدن كم حنا جانا دكاترة تصب إيدن كم حنا جانا ويسأل الله دوا هذا إن حتى ما يدري مهين إني ما الرئيس ضد أفرتن ما الرئيس تلك تلا هاي بسلامه udurada la hadway talaalay leeyahay raas udurada xun ma raas hata wadanka dhawaatanka jeysadahayo eediyada siinka maxnagaan waana siin xambaliyeen dhawaada sanana garab iyo ma raay gaashan siin anna wala kula sooni group oo la taraawba ma artay roogni kunti hool sugaaya hayti waa meher koreya isbitaal xilliga leen baahanay ma artay me buuha waqtigii ha ku galayo وأنا أدي هذا ما أرتي هنرويان وأنا كفرح سرنا إن شاء الله كارن كنوك إيدن كحلوانا هان إنك الصجران ما أرتي ميبوها قدية برلمان كقابل سما أرتي ميبوها ديني عافمات قابل سجران يوم ما أرتي يعني كهبونت إني لور قليل وزارة ما أرتي كل اللي صوته هي وزارة وراي ما يفرنا وصعد ضدك هو اللي ما أرتي أنت كبلاوي ضد ما أرتي مقاتير ديجان كان ما أرتي إلهي هندري ولا نقبض هاي أول هرب ولا نقبض هاي تيجي أول هاي ما أرتي يا ما كلام جبارنا إني هتنا إسبيتال برايبد ساعات كسولين باهنين ما أرتي ما يبغى هنتي باهدا شعب وينهم إني اسمعتي كافي درتي أنت إنكفران. agaasimada isbitaalka Horseed International Hospital ee magaalada Baydhabo oo gabagabadii ku hadalay munaasabada iyo waliba uu sheegay inta deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya uu ka bilaabo talaalka cudurka agaarishowga kaasoo agaasimaha uu sheegay intii cudurka agaarishowga iyo bulshada ku nool deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya iyo si beeslaan ka tilaala doonaan waxaan tilmaamo madadu horeysay in laga fuliyo talaalkaas oo talaalka agaarishowga qaybtiisa hepatitis B-ga oo lacag la'aan ah taasoo aska kaashanayna muxuu ahaa Kalkaal Hospital Kalkaal Foundation in yar haddii aan ka taabto baahidii keentay marka hore muxuu ahaa in talaalkan iyo isbitaalkan bayn la furo sabab waxa uu ahaa muxuu ahaa fikir ka yimi in isbitaalka la furo aniga iyo nin saaxiibkay oo maanta aan la joogin أنا دكتور حسن مبارك
waxaan kaloo la kaashanay dad badan oo muxuu ahaa ay sheegeen khubaro ah oo asxaaba oo aan wada shaqeyno oo aan ka wada howlgalno muxuu ahaa ay sheeg magaalada aad baan ugu faraxsanahay in ugu dambeyntii aan ku guuleysanay inaan bishii hadda lasoo dhaafay fardaadkeedii aan furno waxaan rajaynaynaa muxuu ahaa in isbitaalkan daboolo baahiyo fara badan oo ummaddu ay qabto markaan aragnay baahiyaha jira awgeedna waxaan keennay qalab fara badan oo waddankaana dowlid loo aadi jiray loogu safri jiray muqdisho iyo meelo kasii dhaadheer marka ilaa in laga baaqsado taasana macnaha aan rajaynaynaa waa markii horeyti oo talaalka cudurka cagaarshowga la hadeersi magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay iyadoo isbitaalka horseeda ee kumid ah isbitaalada cusub oo hadda ka furay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay uu saatasheenay talaalanka taragalay cudurka cagaarshowga Axmed Ibrahim Buule KGS TV Baydhabo.